بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتين دمانتين إن شاء الله maanta casharkeena waxaan ku qaadan doonaa fail over clustering si aan ku fahamno waxaan idiin sheegayaa sheeko yar oo tusaale ah. waxaa jirta shirkad la yiraahdo Banaadir oo service siin jirtay maxaan ku radaa macaamiil aad u fara badan oo isugu jira gobolka Banaadir iyo gobolada kale. waxaa dhacday shirkadaasi ama kamanigaasi inuu lahaa halkan server oo kaliya. maalmaha kamid waxaa dhacday serverkii inuu fariistay dhammaan hay-adii maxaan ku radaa waaxihii degmooyinkii ku xiraa iyo baraanjiyadii ku xiraa oo dhan markay maagaan inay soo galaan dabcan inay soo galaan serverkii si ay biilashii iyo wixii u baxshaan ama ay u fiiriyaan ama ay u maamulaan. serverkii waa fadhiya completely ma shaqeynayo, shirkadii oo dhan ha fadhiso. baraanjiyadii iyo xafiisyadii shirkadda waxaa saf dheer ugu jira macaamiishii oo lacag la taagan oo iska bixiyaan biilashii. sidoo kale waxaa kusoo xirmi waayay serveradii kale maxaan ku radaa EVC-dii iyo bangiyadii akaunadii lacagii lagu shubi lahaa oo dhan meel ay kala xiriiraan shirkadda malaha shirkaddii oo dhan way fadhisaa. dhibaatadaas iyo dhibaato la mid ah oo ku dhacda shirkadaha waaweyn ee ka waaweyn ee millionska maalintii soo gasho ee adduunka ayaa waxaa dhacday inay khasaaro fara badan uu kasoo gaaray fadhigaas uu fariistay ama halaabadaas uu halaabay serverkii maxaan ku radaa shaqadooda dhan ay ku xirreed. waa la fariistay waana la fikiray waxaana la soo saaray alxamdulilah cilmigan la yiraahdo fail over clustering. fail over clustering waxaa waaye serverkii ay shirkadda lahayd iyo mid kaloo la mataan ah oon waxba islaamin oo isku mid yihiin ayaa waxaa loo sameynayaa duum ama dabool saare oo ay wada wadaagaan dhammaantood. halkaas oo kastamarradii oo maxaan ku radaa waaxihii ama baraanjiyadii shirkadda ama kastamarkii ay kala soo xiriiri karaan. soo marka haddii kan koowaad oo primaryga ah uu damo uu halaabo waxaa active noqonaya kan node 2 ah oo secondaryga ah. soo markaas qofkan kastamarka ahay ma oga inuu halaabay node 1 mar walba isagu wuxuu helayaa service joogto ah waayo waxaa shaqo galay node 2. marka sida loo sameeyo iyo qaabka loo sameeyo file over clustering ayaan ku qaadan doonaa casharkeenna oo faahfaahsan oo baraatika iyo diyaar garowga intaba ah insha allah. marka waxaan sameynaynaa marka aad sameynaysa file over clustering sida waxaad u baahan tahay oo u diyaar garoobi lahayd oo kombiyuutaradaada u diyaarsan lahayd ayaan hadda gelaynaa. marka bal ila fiirsho. waa hagaag markaan waxaan u diyaar garoobeynaa inaan u diyaar garowno clusteringka. marka sidaan hore usoo sheegnay waxaan haysanaa saddexdan computerka ugu horeeya waxaan ka dhigan doonaa domain controller, kan xigana wuxuu noqon doonaa node 1, kasii xigana node 2. marka qaabka loo sameeyo ama domain loo sameeyo ama domain controller loo sameeyo kadibna lagu soo joongarayo oo lagu soo daro computeradii kale oo xubnaha ka ahaa domainkaas iyaga intaas dhan waa dul mari doonaa waayo iyaga cashar kale ah gooni ah aan hore usoo qaadanay. casharadii hore ee domainka ayaadna ka heli doontaa faahfaahintooda. hadda waa dul mari doonaa maadaama ujeedkeenu uu yahay cluster inaan sameyno. okay, computerka ugu horeeya waxaan dhammaantood saddexdooda waan ku wada shubannay Windows 2000 server 2012 server R2 ah sida arkaysaan. maadaama aan sameyn doono domain la yiraahdo banaadir.com waxaan sameeyay marka waxaan u bixiyay kombiyuutaradii magacaha degmooyinka taas oo aan ula jeedo si hadhow aad ugu samaysan kartid adiga maxaan ku radaa wixii maartay shaqada quseeyo. marka waxaan u kala bixiyay magaca ugu horeeya oo hodan oo domain controllerka ah, kan xiga oo waa beri ah iyo kan u dambeeya oo ah shibis. hodan waxaan siinay IP address oo class C ah 192.168.1.10 ayaan siinay. kan xiga waxaan siinay .15, shibisna waxaan siinay .20. kulligood waa class C. subnet maskooda waa aragtiin waa 255.255.255.0 waa isku mid. kan ugu horeeya marka oo domain controllerka maadaama uu active directory leeyahay oo noo noqon doono DNS serverkeena isaga waxaan siinaynaa
addresskaas oo taqaanin oo loop addresska ah oo 127.0.0.1 ah iyo haddii aad siiso isla IP addresskiisa waa isku midkii isagii maadaama uu yahay DNS serverka wuxuu tilmaamayaa in asagii uu addresskiisa u yahay waxaan ku xijinaynaa node 2 isna waxaan siinaa magaca la yidhaha waa beri IP addresskiisa waa kaas waa .15 DNS serverka maadaama uu DC-geena uu yahay hodan addresskiisan ka dhigaynaa si xagga uga helo servicekaas DNS-ka waxaa soo haray shibisna waxaan siinay .20 IP addresskiisa ah 7 mask waa isku mid DNS-kan waxaan siinay IP addresska oo domain controllerkeena maadaama isaga noo yahay duqi xaafadda ama DNS serverkii domainkiinu marka waa banaadir.com hadda wixii ka dambeeya marka waxaan u gudbi doonaa waxyaabaha muhiimka ah intaadan samayn serverka in aad iska ilaaliso ama aad samaysato si aad ugu diyaar garowdo kombiyuutaradaada diyaar u ah markaas inay samayn karaan clustering inay samayn maaragtay ay wadaagi karaan virtual disks oo iskaazi ah inaysan lahayn maxaan ku rahdaa wax restriction ah waxaasoo dhan ayaan maaragtay u diyaar garoobi doonaa waxaa laakiin rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo idin xasuusiyo saddexdan computer waa inay yeeshaan oo ay kusoo wada galaan hal user account kaasoo ah domain user account waxaa ku celinaya waa inay kusoo wada galaan domainka hal magac ama hal account oo ah domain user account waxaana laga dhex samayn doonaa hadduu ilahay raalli ka noqdo oo aan ka dhex samayn doonaa domain controllerkeenan domain controllerka ayaa waxaan ka dhex samayn doonaa account ay wadaagaan oo user account ah ay kusoo wada galaan maadaama labadan computer aan rabnay inay iyagu noo haayaan clusterka waa inay noqdaan laba computer oo mataano ah oo isku mid ah oo isku magac ah ma fahamtid marka ujeedkeenu waa kaas inay domain user account ahaadaan oo ka wada dhexeeya haddana waxaan u gudbaynaa waxyaabihii muhiimka ahay bal inaan iska fiirino insha allah weli waxaan ku guda jirnaa u diyaargarowgii aan u diyaargaroobeynay inaan kombiyuutaradeenna aan cluster gareyno marka waxaa muhiim ah arrimo aan halkan ku aragno oo ay tahay inaan ka fogaano carqalado naga hor istaago clusterka marka inaan sameyno waa arrimahan maxaa ka mid ah dhammaan kombiyuutaradu waa inay ku biiraan domainkii aan sameyno ee ahaa domain ee ahaa banaadir.com inay ku wada biiraan waa qaabka loogu biirinayo ama joinka sida loogu daraayo iyagana waxaan kusoo qaadanay casharkeennii hore ee ahaa domainka iyo domain userska ayaan kusoo qaadanay dib ugu noqo fiirso waxaad kaloo iska xirtaa firewallka isaguna wuxuu keeni karaa carqalado inuu kaa hor istaago servisyada qaarkood hub xiriirka ka dhexeeya domainka iyo kombiyuutarada macnaha waxaan ula jeedaa xiriirka ka dhexeeya kombiyuutarada domainka ku jira gudahooda waa biingaraynaysaa waxaa biingaraynaysaa kasoo qaad domain controllerka waxaa ka biingaraynaysaa waa beri ama waxaa ka samaynaysaa biingaraynaysaa 192.168.1.15 si aad markaas u ogaato shibis inuu ku jiro oo is arki karaan sidoo kale kan kale sidoo kale aad soo samaynaysaa vice versa sidoo kale waxaad samaynaysaa waxaad biingaraysaa magaca meesha aad IP hadday ka biingaraysay haddana magaca biingaray oo waxaad tirahdaa bing shibis taas waxay ku tusaysaa marka in uu shaqaynayo DNS serverkaaga sababtoo ah DNS server shaqadiisa waxaan ku ogeyn inuu isku duubo maxaan ku irahdaa wuxuu haystaa liiska magacyada kombiyuutarada iyo IP adressadooda marka aad weydiiso IP adresskaas wuxuu fiirinaya liiskii wuxuu ku leeyahay kasoo qaad markaad tirahda markuu aad weydiiso 192.168.1.15 markaad u qorto wuxuu yaqaanaa inuu yahay kombiyuutarkaas shibis soo marka aad shibis weydiiso wuu ku bingaraynayaa waana helaysaa waxaa kaloo samaysaa marka sida haddaan u sheegnay kombiyuutarada oo dhan waa inay kusoo galaan
admin user oo ah domain user account. computerada dhan markaas waa inay ku jiraan groupka domain userska. waxaa kaloo iyadana halkan aan ka iloobay oo ay tahay inaad wanaagsan in la sameeyo si loogu diyaar garoobo clusterinka, in la active gareeyo windowskaaga, inaad update garayso iyadana waa muhiim. markaas waxaa heli kartaa serviceyo badan iyo feature badan oo kaa maqnaaya ayaa laga yaabaa in lagu soo daray, wax badan la sahlay, la wanaajiyey, bugs badan laga bixiyey, la qurxiyey. marka hadda wixii ka dambeeya waxaan geli doonaa shaqadii clusterka ayaan gelaynaa. ila soco insha allah. okay, marka waxaan ka bilaabeynaa hodan oo ah domain controllerkeeni. halkan aan joogno waxaa la yihahdaa local serverka. waxaa halkan ka arki kartaa xaaladda serverkaaga uu ku sugan yahay. marka halkan waxaan ka geli karnaa markii aan rabno inaan magaciisa bedelno, IP addresska markaan bedelno aan rabno inaan bedelnana halkan. marka haddii aad rabto inaad dhinacaan ka gashan waa ka geli kartaa. right click aa leedahay. right click markaad tirahdo system aad tegaysaa. system kadib waxaa leedahay change settings, waxaa leedahay change. marka magacaan macno hadda nooma sameynaya annaga, laakiin magac macnaha noo sameynaya aan ku bedelan doonaa kaas oo ah hodan. kadibna waxaa leedahay okay. waa kugu qasbi doonaa markaas in computerka aad kaco demo soo kaco, laakiin maadaama hadda annaga aan okay waa u ogolaaneynaa. marka waa ujeedaan serverkeeni wuxuu la baxay computer namekiisa wuxuu noqday hodan. weli waa work group waaye, ma noqonin domain. maxaan ku iradaa internetka IP addresska aan siinana waa aragtaan halkan IP v6 waaye, waa enabled. waxaa noo harsan markii inaan ka dhigno firewallkeeni inaan ka dhigno off, iyo inaan computerada kale iyagana soo siino IP addressadii iyo magacyadoodii. firewallka waa on weli, off aan ka dhigaynaa haddii ilaaha yiraahdo. kadibna waxaan aadaynaa waa beri iyo shibis si aan magacyo usoo siino iyo IP addressyada. kadib aan halkan soo laaban doonaa. marka waxaa xiga sidaan ku ballanay waa beri waa soo sameynay, shibis ayaan hadda sameynaynaa. marka ugu horeysa magacaan magac aan fahmi karna ma ahan ama macno noo sameynaya annaga, waa inaan ku bedelanaa shibis. click computer name, change aan leenahay, shibis waa kaba dhignay, then okay aan leenahay. horaan buu dhigay. oo group waa weli ma gaarin. IP addressyada aan soo bedelaynaa. hadda automatic oo joogaa. laba network aana noogu jirto. kana waxaan ka dhigan doonaa heartbeatka, kana waxaan ka dhigan doonaa kaarka caadiga ah oo local networka. static IP address siinayna sidii kuwii hore kale. P4 192.168 sorry 192.168 kii hore wuxuu ahaa 15 waa beri. toban shibis wuxuu ahaa ballanta 20 siino 20 kaasa netmask waa kaasa. default gateway waxaan siinaynaa 192.168.1 sida caadiga ah. DNS waxaan siinaynaa IP addresska oo domain DNS serverka oo ah domain controllerka hodan 192.168.1.10 ayuu noo ahaa. okay waay. kadibna wuxuu sameyn doonaa restart. sorry inta restart sameyn waxaan ku darsanaynaa IP addresska network kaarka xiga. CSS keena qaldamay horta magacaan ka bedelano. waxaan u bixinaynaa heartbeat si hadhow SSL ka qaldamin. kana aan siina IP addresski
inkastoo aanu ku sheegin qoraalka ugu horeeyay oonka idinka iloobi kan waxaan siinaynaa IP address oo class ah 10.0.0. kii hore waa beri waxaan siinaa 1 shibisna waxaan siinaynaa 2. inta kale inaa wax ka badasho uma baahni sideeda ku daa. marka labada node ayaa waxay sameeyaan inuu midka kale ogaado markuu rabo inuu nool yahay. node 1 iyo node A ayaa waxay sameeyaan waxay ku wada xiriiraan network arkan waa private IP address. soo marka waxay isu diraan fariimo war hebelow saa tahay waa fiicanahay kusoo jawaabaya war ma nooshahay waa noolahay waa joogaa si markaas uu ogaado mar walbaba inuu ninkaas kale oo saaxiibkiisa active yahay uu shaqeynayo. marka intaas uga baxno firewallkii waa on isagana off aan ka dhigaynaa. off aan ka dhignay. okay kadib iska xirkan computerkaaga. marka IP address waa xisustay labadii address waa kuwana labadii networkii caadiga ahaa iyo kii kale oo ahaa maxaan ku rahdaa IPv6 ma siina. okay waa fiicana IPv4 waaye. then computerkeena waa daminaynaa waana soo kicinaynaa restart aan ku sameynaynaa si uu u qaato wixii aan ka bedelnay oo active noqon. marka waxaan siinay IP addressadoodii waxaan siinay magacyadii waxaan iska xirnay firewallkii. marka waxaan sameynaynaa inaan hubino bal inay xiriiri karaan connectionka ka dhexeeya. intaan taas gelin ka hor waxaad aragtaan inaan wixii oo dhan aan la wada arki karin ama in boardka uu nagu yar yahay. si markii wixii ay noogu filaadaan waxaan tegaynaa insha allah view feed gast now. waa arkaysaa wixii dhan soo wada galeen oo waa wada arki karnaa. laakiin hadday waxay ahayd inaan kor u qaadno hoos u dejino kor u qaadno hoos u dejino hadda waa nagu filan yahay waa wada arki karnaa. okay shibis aan tegaynaa aan joognaa waa bing garaynaynaa. marka waan sameynaynaa bing oon raadinayna bal inay isku xiran yihiin in kale 192.168.1.15. weli ma gaarin aan bing garayno magacii sababtoo ah weli ma haysano DNS serverkii oo noo sheegi lahaa magacyadii. waa aragtaan xiriirkoodu waa fiican yahay. sidoo kale waa berin waan ka sameynaynaa hodan waa ka sameynaynaa in xiriirkaas uu jiro. marka waa okay. okay marka domain controllerkeena ayaan rabnaa inaan ka dhigano inaan caano shubno oo maaragtay duqii aan ka dhigno oda dhaqameedkii. marka odaga xaafadda waaye waa inaan kusoo galnaa marka administrator si aan ugu darno fiijaradii iyo awoodihii u siin lahayn si uu ku noqdo ku noqon lahaa domain controllerkii ama duqi cidda ama waxaan ku rahdaa odaga xaafadda ayaan marka waxaan ku gelaynaa administrator. haddii aan kan ku galno hadhow nagama ogolaan doono inaan ka dhigno oon maaragtay duq ahaan u duubno sababtoo ma lahan awood oo maaragtay ku qaabilo inuu noqdo odaga xaafadda. kanaan ku gelaynaa administratorka passwordkiisa aan ku gelaynaa oo aan hore usoo sameysanay. waa markii ugu horreysay aan ku galo sababtoo ah hadda u qaatay passwordkii hadda wuxuu qaadanayaa settingkii oo personalizedka ahayd oo accountkaas aan ku galnay. marka waxaan kusoo dari doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo fiijaradii
siin lahay awoodda oo ku noqon lahay domain controllerka waxaa ka mid ah active directory aan kusoo daraynaa waxaan kusoo daraynaa DNS serverkii haddaan arki doono waxyaabo badan waxaan leeyahay waa inaan logaf sameysaa maadaama aan bedelnay accountkii aan kusoo gelaynay okay marka hadda waxaan tegaynaa manage accountka aan kusoo galna hadda waa administrator waaye waxaan tegaynaa manage add rules and features kan mar walba inuu soo baxa marna naga jooji next waa keena waay hodan waay waa saxanahay next waxa ugu horeeya aan ku darsan doonaa waa active directory domain services kan u baahannaha waa ninkaas oo ka dhigi doona domain controllerka waxaan kaloo u baahannahay file and storage services waa noo dooran yahay waxaan ku darsanaynaa file and SCSI services waxaan kaloo u baahan doonaa file serverka waa isaga dareen dhimale waa ku jiraan intaas markaan ku darano waxaan leenahay next inta wax kalen uga baahannahay ma jiraan ilaa hadda haddii aan u baahanna waa soo laaban doonaa insha allah click next kale kabacdi install markuu install gareeyo oon refresh ku sameyno serverka ayaad kusoo laaban doonaa marka waxaa intaas noogu dhammaaday qeybteeni koowaad ee casharkeeni cluster ahaa marka qeybaha dambe insha allah halkaasaan kasii wadi doonaa la soco qeybta labaad ee casharkan clusterka halkaana waa noogu dhammaaday casharkeenii qeybtii koowaad insha allah wabilaahi towfiiq waa inoo qeybta labaad